Dhammaantood raggu waxay rabaan haweeney qiimo badan. Dhibka jira ayaa waxa uu yahay dumarka badankood ma yaqaanaan sida loo noqdo haweeneydaas. Waxaad arkaysaa gabadh qurux badan oo haddana aan haysan nin iyada jecel. Haddaba sideed u noqon kartaa haweeneyda qiimaha badan oo aysan raggu marna rabi doonin inay iyada ka tagaan? Ma fududa in la sameeyo sidaas, sidoo kalena saa'id uma adka. Badanaa inaad haweeneydaas oo kale noqotaa waa wax iska imaan kara dabiici ahaan. Marka aad sii weynaanayso, raggu isku dooq ma ahan. Qaarba nooc ka mid ah dumarka ayay ka helaan. Si kastaba waxaa jira nooc ka mid ah dumarka oo aysan raggu marna iska diidi karin iyaga. Gabdhaha aan naftooda waxba u qaban karin ma ahan gabdho soo jiidasho leh. Raggu ma jecla waqtigooda badankiisa inay geliyaan caawinta haweeneydooda. Marka haddii aad rabto inaad noloshaada qurxiso, raggana aad soo jiidato, talooyinkan soo socda way ku anfici karaan. Inaad noqoto haweeney qiimo badan, faa'iido badan ayay kuu leedahay adiga. Haddaba waa tan sidaad u noqon lahayd haweeneyda qiimaha badan, qiimahaagana aad dadka u tusi lahayd. Lambar 1, gara qiimahaaga. Waxaad leedahay qiimo ka badan intaad siisay adigu. Ha u malaynin marnaba inaanad qiimo lahayn. Markaa gara qiimaha aad leedahay. Waxyaabo badan ayaad wadaa, rag badanna aad ayay nasiib badnaan lahaayeen haddii ay adiga ku heli lahaayeen. Marka aad garato taas, aadna maskaxda ku haysato, waxaad noqon doontaa haweeneyda nooca keliya ee ragga oo dhani ay doonayaan. Lambar 2, xushmad ayaad istaaheshaa. Ha ka aqbalin marnaba inuu qof kugu dul socdo adiga, uu wuxuu doonana kaa samaysta adiga. Waa in lagu xushmeeyaa, dhan kastana laga xushmeeyaa. Dareenkaaga, noloshaada gaarka, shaqadaada, waqtigaaga, asxaabtaada iyo wax kastoo adiga kugu saabsanba. Haddii uusan qofku xushmayn karin adiga, qofkaas noloshaada ka tir. Uma baahnid dadka noocaas oo kale ah. Lambar 3, noqo gabadh isku kalsoon. Tani waa wax aad u muhiim ah. Haddii aanad naftaada ku kalsoonayn, inaad noqoto haweeney aad u sarreysa way kugu adkaan kartaa. Si aad u noqoto gabadha kalsoonida iyo qiimaha badan, waa inaad aamintaa inaad tahay gabadh khatar ah, yacni gabadh soo jiidasho leh. Lambar 4, dheh maya oo isbar maya. Ha noqon qof wax kasta ku raacda dadka. Maya waad dhihi kartaa haddii aad haysato fikradooda ka duwan, ama haddii aanad rabin inaad wax samayso. Dumar badan ayaa mooda si ay nin u helaan inay wax kasta ha u dhahaan isaga. Runtii waa cagsiga arrintaas. Maya inaad dhahdo go'aanna lahaato waxay ku siinaysaa xushmad. Ha u samaynin si aad qof kasta u farxad geliso, sababtoo ah taas marna ma samayn kartid. Lambar 5, ha ku qancin wax ka yar waxa aad u qalanto. Haddii uu qofku xumeeyo, adiguna aad og tahay inaad u qalanto qofka ka wanaagsan, dabcan waa inaad iskaga tagto qofkaas. Tani maaha waxaad fursado badan ku bixin karto. Haddii aanu wiil xushmad ku siin karaynin, iska dhilid garee isaga dhanba. Qofkaasi maaha midkii aad u baahnayd. Qof aan ku xushmayn karin waa qof aan kuu qalminba. Lambar 6, ha noqon qof markasta la heli karo. Xitaa gacalyahaaga uma ahaan kartid qof uu markasta heli karo, sababtoo ah maba noqon kartid. Qorshahaaga ha u burburinin keliya qofkaasoo daahay si aad waqti u siiso. Nolol ayaad leedahay, qof kastana free uma tihid. Tani waxay kaa dhigaysaa haweeney qiimo badan, waxayna ragga baraysaa inay waqtigaaga xushmeeyaan, sidoo kalena ay qadariyaan waqtiga aad iyaga siiso. Waa intaas muuqaalkeenu. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan, waxna ka faa'iidi doontaan. Dabcan hadday saas tahay muuqaalka like ii saar, waayo waxay tahay dhiirigelin. Tan iyo muuqaalkeena xiga waxaan idinku dhaafay nabadgelyo.